iyo mudanayaal tusan oo habboon ku soo dhawaada qaybtii labaad ee qisadii Professor Yaxya Juma iyo Dr. Raisa Amelia. waa bogo ka mid ah xaashiyihii buugga xasuus qarka ee Amelia oo waa hilinkii habboonaa ee diinta Islaamka ay ku hiigsatay iyo wadaagii jacayl dhex maray iyada iyo Yaxya Juma. waa tarjumaadii Cabdishakuur Cali Nuur iyo soo jeedintii Khadar Maxamed Xaashi. haddaan cajalada dib u soo celinno qaybtii koowaad ee sheekadu waxaan ku soo ogaanay in Juma iyo Amelia ay isku barteen Bank of England. Amelia oo Southampton ku dhalatay waxay fikrad xun ka aaminsanayd Afrika iyo dadkeedaba. waxay sheegtay inuu ku tallaalan yahay nacayb ay u qaaday dadka ajnabiga ah ee UK ku nool. maruu Juma gurigeeda boorso ka luntay ugu geeyay waxay sheegtay inuu ahaa qofkii madoobaa ee ugu horreeyay ee albaabkeeda soo garaaca. Juma oo isku goob ka shaqaynayeen waxay ku tilmaamtay nin qunyar socod ah oo xushmad badan, waxayse markii dambe u qaaday dareen jacayl. qaybtii labaad ee qisaduna ha inoo bilaabato. xiriirkayagu wuxuu ahaa mid sii socda, waxaanuuna isnaqaanay muddo dheer. intaa ka badan wakhti kuma lumin karin, waxaan kolba sarbeeb wax ku dareensiiyo. waxay noqotay markii dambe inaan si badheera ugu sheego damcayga. kolkaan u sheegay wuxuu igu yidhi arrintaasi waa mid nolosheenna iyo mustaqbalka labadeennaba khatar ku ah, sidaa darteed waxaan soo jeedin lahaa inaynaan ku degdegin. wuxuu niyadda iigu dhisay aqoon ahaan dadnimo qofeed iyo quruxba inaan ahay qof xul ah oo qof nasiib lii heli karo. wuxuu iga mahad celiyey inaan qiimaynta qadarin u sarraysa ee qof la siiyo aan siiyey. wuxuuse dhib weyn ku tilmaamay khatarta ka dhalan karta arrintaasi inay tahay mid galaafan karta cawaaqibka nolosha iyo hannaanka aan u soo halgannay marka qiimayn lagu sameeyo xaaladaha markaa jiray. waxaan u sheegay umuurta inaan ku dhiiraday, isaguna uu si dhaba uga fekero. wuxuu yidhi waan ka soo fekeri inaan wakhti siinaana way qumanaan lahayd. waxaan ku idhi bay tiri degdeg ma jiro. intaa kadib waxaan dareemay inuu dibufaagasho galay oo iga yarahe fogaaday. wuxuuse ahaa mid tixgelin iyo xushmad culus mar walba ii haya. wuxuu ahaa nin dantiisa guud ku far adag oo qorshe wadaninimo uu dalkiisa la damacsan yahay, wax kastaba uu kala weyn yahay. arrinta jacaylka wuxuu u arkay mid qalalaase iyo laablakac ku keeni karta qorshihiisa mustaqbalka dheer. saas oo ay tahay kamaan hedhin Juma, welina waxaannu isla nahay macallimiin. dharaar walba waxaan arkayaa Juma oo agtayda ka agdhow. wuxuu noqday nin aqoon sare leh oo aad jaamacadda looga qadariyo. mar dambe waxaan ogaaday inuu muslim yahay, diinta weliba ku adag. wuxuu ahaa wadaad qaadiriya ama suufiya, sidaa daraaddeed ma ahayn nin xidhiir gaar ah la yeesha haweenka guurla'aan. islaamnimadiisa uu ku adag yahay waxay ka hor istaagtay cabitaanka khamrada iyo waxyaabo kale, taasoo mas-uuliyaddiisa kaamil yeeshay una sabab ahayd in wixii uu qabtaba oo dhanba uu ku guulaystay. halgankiisa kama madhnayn inuu dalkiisa muslimkaa ka xoreeyo gumaystaha marna caddaanka marna ka diinta duwan, taasoo marka islaamnimada ah la joogo camal wanaagsan ah qofku inuu dalkiisa iyo diintiisaba difaaco. wuxuu dalkiisa la doonayay madax bannaani dowladeed iyo mid aqooneed. arrimahaas ayaana dareenkii Juma aan u qaaday ku noqday derbi adag oo aanan dhaafi karin. waxaan ka bartay wax badan oo diinta Islaamka ka mid ah. laftaydu waxaan dareemay dhowrsanaan, waayo hadduu ahaan lahaa mid kilaabada iyo goobaha tumashada taga, waxaan hubaa inaan wada tamashlayn lahayn oo aan cawaysyada meelaha isu raaci lahayn. qof ahaan isaga ka hor diinta Islaamka wax fikrada kama haysan, waayo waxaa qoyanaa raadkii kacaankii lagula dagaalamay kiniisadaha, sidaa daraaddeed diimahaba col baan la ahaa. waxaan jeclaystay aragti diimeed inaan ka gunto, laakiin Juma aad uguma xeel dheerayn amuuraha diinta ee tawxiidka ku taxalluuqa. wuxuu ku wacnaa dhinaca cibaadaysiga iyo wardiga oo aan u malaynayo waalidkii inuu ka dhaxlay. wuxuu ahaa nin xeerarka Islaamka u dejisan, aan doonayn inuu si yar uga tallaabsado. wuxuu u dabranaa awaamiirta diintiisa. waa marka aan dareemay inaan soo galay xayndaab diimeed. sidaa awgeed berigii dambe marka aan la kulmayo madaxa waan soo awdan jiray, arrintaasna aad ayuu ugu riyaaqay una soo dhoweeyey. wuxuu ka tirsanaa urur u dhaqdhaqaaqa xorriyadda dalka yar ee Gambiya oo Ingiriisku gumaysan jiray.
waxaa farxad ahayd 18 February 1965 in dalkaasi xorriyadiisa qaatay kana mid noqday waddamada barwaaqa sooranka. laakiin wali wuxuu si dadban u hoos imaanayay boqoradda UK ilaa laga soo gaaray 1975 markaas uu noqday Jamhuuriyadda Gambia. gobonimada Gambia kadib Yaxya Juma waxa uu go'aansaday inuu England ka huleelo oo dalkiisa ku laabto. Amelia waxay tiri aniga dadkaygii waa iga yaaban yihiin, waxay ii arkaan qof lumiyay haniyo firfircoonidii uu lahaa, kana dhex baxay bulshadii la ayniga ahayd, taasoo ay garan waayeen waxay ku macneeyaan. Juma intuusan bixin ayaan habeen wada sheekaysanay, waxaanan ku qanciyay inaanu Gambia wada degno isla markaana aan diinta Islaamka qaadan doono. wuxuu igu yiri nolosha aad ku nooshahay kuna barbaartay Gambia ma taal, sidaa daraaddeed inaan ku dhibo ma rabo ee adiga oo UK jooga muslim noqo. sidaan mar dambe ogaaday inaad qof muslimisa waa arrin qiimo weyn u leh dadka muslimka ah marka laga eego dhinaca camalfalka, sidoo kalena naxariis way kuu jiidi kartaa maadaama sida diintu qabto qofka aad cadaab kala baxsanayso. aakhirkii waxaanu ku heshiinay inuu baxo oo uu qiimayn ku sameeyo nolosha halkaa ka jirta, waraaqahana aanu kala helno. si joogto ah ayaan u xidhiiri jirnay. Juma markii dalkiisa uu tegay waxaa loo magacaabay madaxa bangiga dhexe ee dalkaas. 8 bilood markii uu sii maqan yahay waxaan qaatay go'aan la yaab leh. qalbigaygu wuxuu igu qancinayaa dhulkii aan ku dhashay inaan ka dhaqaaqo oo aan tago qaaradda Afrika ee aan ka biqi jiray. laabtaydu waxay ii jiidaysaa dhanka Juma uu iga jiro. waxaad mooddaa inay qaadayso heesta midhaheeda ay ka mid ahaayeen. ma jiifsado caawadii dharaartii ma joogi karo, dhinacaad iga jirtaabaa qalbigu ii jiidaya. saddex bilood ayay igu qaadatay bay tiri inaan qorsheeyo safar dheer oo saamayn ku yeelan doona habku socodka noloshayda dambe. waxaa la soo gaadhay 28 Abriil 1967. waa maalintii England aan ka dhoofay. safar dheer kadib waxaan ka degay Gambia oo ahayd halkii aan u socday. sidii aan filayay waxaa si wanaagsan oo la yaqaano ii soo dhaweeyay Juma. wuxuu igu dejiyay hotel, wuxuuna iga codsaday inaan dirso nolosha halkan. anigu waan soo diyaar garoobay oo isaga ayaan doonayay, waxaanan ku khasbanaa duruufaha adag ee soo waajahay inaan la qabsado. daraasad dheer kadib waxaan ku qancay qaadashada diinta Islaamka. ashhadu an laa ilaaha illa Allah. waxaan qiray Allah xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaahay mooye, nebi maxamedna uu yahay kii laynoo soo diray. ashhadu anna muhammadan rasuulullah. Gambia oo suufiyadu aad ugu badan tahay, waxay dadku in badan oo ka mid ah diinta u haystaan sidii hab dhaqan ah oo abka soo gaara. maskaxdayda waxaa ka guuxaya weydiimo badan oo warcelin waafiya u baahan, laakiin ilaa hadda wax jawaabo saxan su'aalahayga iga siiya ma hayo. sidan waan ku wareeray, waayo anigu waxaan doonayay aqoon mug leh diintan igu cusub in layga siiyo. waxaan rabaa cibaadadu inay dhadhan ii yeelato. Juma wuxuu igula taliyay inaan waxbarashada dalka ka shaqeeyo si aan wax u toosinno. codsigaa waan ka aqbalay, dalkiina waxaan ula qabsaday si degdeg ah. intii aan waxbarashada dalka ku jirnay waxaanu isbarannay wadaaddo aqoon daadegan u leh diinta Islaamka. waxay ahaayeen wadaadadii dariiqa san igu toosiyey. waxay lahaayeen maktabad islaami ah oo ay yaallaan kutub aqoon diimeed laga baran karo. rag bay ahaayeen ogol in lala doodo oo qofka u jihaynaya dhinaca eebbe. runtii aad baan culimmada uga helay. waxaan la qabsaday madaaristoodii iyo maxaadirooyin ay jeedinayaan. waxay bareen af carabeedka, axaadiista nebiga iyo qur-aankaba. Juma markuu arkay xaaladayda wuxuu ku qancay inaan halkan ku noolaan karo. wuxuu i tusay weji kii hore ka duwan oo dareen jacayl ka muuqdo.
bacdama aan noqday gabadh asturan oo fahantay fiqiga iyo tawxiidkaba wuxuu markan go'aansaday inuu guur ii soo bandhigo. arooskaygu wuxuu u dhacay hab waafaqsan diinta islaamka. hanashada ajuumana waxay ka mid ahayd halgamo dhowr ah oo aan u gacan qaaday kuna guulaystay. liibtase waxaan marnaba lala wadaagi karin eebbaha awoodda badan. waxaan noqday qof reer Gambiya. inkastoo aan aad u jeclaa Yaxya Ajuuma, haddana cajiib bay la ahayd inaan nin madow qol la dego. aad buu u feedha weynaabay tiri oo wuxuu ahaa mid quurin jiray, sankana wuxuu ku lahaa timo xitaa markii dambe cirro noqday. wuxuu ahaa wadaad suufi ah oo wardi badan oo foox iyo luubaanshidasho badan. ugu dambayntii waxaan ku guulaystay Ajuuma inaan ka soo wareejiyo suufinimadii. wuxuuna ka raystay safaradii uu u geli jiray qubuuraha iyo shakhsiyaadkan ku jira oo uu ka aqoon iyo caqli sarreeyo. waa kan Ajuuma oo culimmadii aan diinta ka bartay ku xidhmay oo godh weyn yeeshay. waxaan ahayn laba qof oo akaademig ah oo aad isu yaqaana. waxaan ku noolaanay nolol ay ku ladhan tahay xiise iyo farxad. 1969kii waxaan ku mahadinayaa eebbaha noogu deeqay wiilkaygii curadka ahaa. waa Abubakar oo aan ugu magac darnay saaxiibkii koowaad ee nebiga. sannad kadibna waxaa dhalatay Faaduma oo aan ugu magac darnay gabadhii ugu yarayd ee uu dhalay Nebi Maxamed. Gambiya waa dal yar oo dhaqaalihiisu hooseeyo waxbarashadiisuna liidato. aniga iyo Ajuumaba shaqo badan ayaanu dhanka waxbarashada ka qabannay. aqoonta oo kor loo qaadaana waxay ahayd hadafka koowaad ee Ajuuma. si uu dhanka waxbarashada u xoojiyo wuxuu joojiyey shaqadii bangiga, wuxuuna diiday jagooyin sarsare oo loo soo bandhigay. wuxuu aaminsanaa sida keliya ee wax lagu beddeli karaa inay tahay da'yarta oo hela waxbarasho dhammaystiran. taasina wuxuu aaminsanaa inay ku jahayn karto dariiqa horumarka. si aan hadafkiisa kobcinta waxbarashada u taageero waxaan iibiyey hal guri oo aan ku lahaa UK. lacagtii ka soo baxdayna waxaan ku dhisay 5 iskuul. waxaa la soo gaadhay 1994kii. Ajuuma wuxuu isu diyaarinayaa safar dheer oo uu ku tago tuulo aan iskuul ka dhisnay. qorshuhu waxay ahayd inaannu halkaa isu wada raacno, laakiin waxaan uga baaqday wiilkayga oo ku safarka baabuurta kuma tegi jiray. waan sii macasalaameynay. waxaan u rajaynay safar wacan. waa kaasoo uu sii libdhayaa. waxaa marba sii naaqusaya guuxa baabuurkiisa oo naga sii fogaanaya. marnaba maankayga maan gelin 30 sano oo noloshayda saamayn uu ku lahaa Ajuumaha sii socdaa inuusanba dib noo soo jalacayn. dhawaaqa ambalaaska ee dhegihiinna ku soo dhacay mar walba oo dhegaheenna ay ku soo dhacaan waxaynu filnaa war xun oo dhiilla xambaarsan. waddooyinka Afrika oo raf u badan iyo wakhtigiisa oo soo idlaadayba Ajuuma safarkii uu ku baxay kamuu soo laaban oo shil baabuur ayuu ku geeriyooday. inkastoo Ajuuma godgolay, laakiin weli waxaan ahay gabadh reer Gambiya. halkan baan sanooyin badan oo kale ku sii noolaa. laakiin 2000 ayaan UK mar kale deegaan ahaan ugu soo laabtay aniga iyo carruurtaydii. markanse waxaan ahay qof howlgaba. inkastoo aan tacliinta xoog gelinay, haddana Gambiya waxaa jiray hirar qofkii isku dayaa inuu ka hortago uu ku hafanayo. hirarkaasi waa kuwa musuqmaasuqa oo ciribtirkiisa loo maaro waayey. diintu ma oggola musuqa, ammaanadana meel adag ayay iska taagtay. haddana dadku inay hantida dowladda xadayaan ka daali maayaan, waayo diintuba waxay u tahay hab dhaqan ah. aniga oo diinta dhowaan qaatay, waxaan aqbali karo ma aha inaan dembiyada sidaa u waaweyn aan si fudud ugu dhaco. waxaad arkaysaa qofkii kaa waaninayay oo isagu falaya wixii uu kaa waaniyey. UK aad bay isu beddeshay. waan ku farxay markaan arkay caddaankii iyo madowgii iyo bulshooyinkii oo aad isu dhex galay iskuna milmay. waanse hubaa dadka ila filka ahi inay aad u dhibsanayaan, waana wax iska caadiya dadka cimriga dheer helaa iyaga oo yaaban
oo isbeddelka adduunkan ka dhacay ka yaaban oo ka ashqaraarsan inay geeriyoodaan. waana xikmadda dhimashada iyo geeridu xambaarsan tahay, in casri kastaba dad la qabsan kara ay joogaan. waxaan eebbe ku mahadinayaa inaan muslin ahay. waxaan ku faraxsanahay shaqo badan oo tabarruca inaan dad mudan wakhti mudan la qabtay. waxaan aaminsanahay inuu noloshaydan macno u yeelay Yaxyaa Juma. cabbirka aan taa ku gartayna waxaan nolol ku soo gaadhay in adeertay oo aanu isku fasal ahayn, waxbarashada iyo shaqadaba heer sare ka gaadhay, ahaydna marka miisaan la saaro wakhtigaa qof guulaysatay. kolkii aan ugu tegay iyada oo guri coosh badani dhex yaalla ku jirta, shaqana ay uga soo hadhay ey weyn oo ay marna bannaanka u saarto marna soo celiso. derbiyada waxaa ugu dheggan sawirro aanu beri aanu yaryarayn wada galnay, oo laftoodu niyadjab iyo quusku ugu filan, waayo waxaa cajiib ah in qofka aad beri ahayd maanta aadan ahayn. waxaa la yaab ahayd kolkii ay guddoonsiisay qormo aniga ay igaga warramayso oo ay cuwaan uga dhigtay walaashaydii luntay. niyadjabka ugu weyn waxa ugu wacan iyada oo nolosha adduunka ay joogto gabtay, midda dhimashada ka dambaysa ee aakhirana rajo weyn aan ka qabin, oo aaminsanba geeridu inay tahay nasiib xumayada soo waajahday. keligeed ma ahayn ee dhammaanba barbaartii beri haystay idaacadaha iyo jaraa'idada UK, inta maanta nooli mid kastaba isagoo asaasaq ah ayuu guri cidlaa ku nool yahay. qaarkood inta ilowshiyo ku dhaceen inay ku gartaan iskaba dhaafe, iyaga ayaan garan karin qofka ay bulshada beri ka ahaayeen. aniguse haddii ay doonto yaysanba dhicine, waxaan qabaa oo ku hamiyayaa rajo ah ajuuma inaannu mar kale jannooyinka carafta badan nolol aan dhammaad lahayn ku wadaagi doonno. taasi waa yididiilo iyo naalood wanaagsan oo aad kaga qanci karto maalmihii wanaagsanaa ee dunidan oo aadan marna soo ceshan karin. waxaan kaloo haystaa laba aan dhalay oo waajib u arka inay xanaaneeyaan, dhulkana aan ii quudhin, sidaa daraaddeedba wax warwar ah nolosha kama qabo. waan ku faraxsanahay wixii aan soo qabtay. saddex iyo soddon sano oo aan Afrika joogay, waxaan galay safaro badan. waxaan tegay waddamo ay ka mid yihiin Senegal, Mauritania, Suudaan, Egypt oo aan booqday jaamacadda Azhar. waxaan kaloo tegay magaalooyinka barakaysan ee Maka iyo Madiina oo aan xaj u tegay. kulligoodba dhulkii aan marayay waxaan booqanayay goobaha cilmiga. waxaa aad iila fogaaday il ay ii furtay luuqadda Carabiga oo ah luuqad wax badani ku qoran yihiin. kutub tirabeel ah ayaan waddamada aan tegay ka soo ururiyey, kuwaas oo aan doonyo iyo maraakiib intaan ka soo buuxiyey aan Gambiya ka soo dejiyey. gurigaygii Gambiya intaan dumiyey oo dib u dhisay ayaan ka dhigay maktabad weyn oo cilmi diineed iyo mid aqooneedba loo soo doonto. intaasina waxay ahayd dulkaxaadin qayb ka mid ah noloshaydii maalmaha dunida. weli waan joogaa oo waxaan ku jiraa, laakiin moortadii noloshayda u dambaysay. waxaan xaqiiqsaday inaan u jahaystay wakhtigii aan dhaafi lahaa dunidan, ama aan soo qaatay maalmihii aan ku lahaa adduunka. waxaan ku faraxsanahay dhammaan waayihii kala duwanaa ee aan soo maray. waxaa mahad iskale eebbahay siiyey caafimaad wakhti badan, iguna garab galay howlo badan oo aan ku guulaystay, haddana isaga ayaan magan u ahay. Amelia waxaa tii alla u timi 28 Agosto 2007. wiilkeedii Abubakar oo ka warramaya wuxuu yidhi, wax xanuuna kumaan ogayn. salaaddii subaxyadaaba ii toosisay, salaadda kadibna cabbaar ayay wax akhriday sidii dhaqanka u ahayd. markaa kadib ayay sariirteeda tagtay. barqadii markay soo kici weyday ayaan ogaaday buu yidhi inay wax jiraan, mise mar hore ayaaba naftu ka baxday. wax rafashahii kama muuqan oo sidii ay u jiiftay weeye. waxaa loo qaaday dalka Gambiya oo lagu dhinacaasay Allah u naxariistay xaajigeedii Yaxyaa Juma. marwooyin iyo mudanayaal, intaa waxaa ku dhammaaday sheekadii aan ka diyaarinay buuggii xasuus qarka ee Amelia. waxaa turjumay Cabdishakuur Cali Nuur, waxaana soo jeediyey Khadar Maxamed Xaashi. waa inoo mar kale iyo mowduuc kale haddii uu Rabbi raali ka noqdo.